magacaygu waa abwaan xuseen hiiraan waxaan halkan ku duubayaa tix yar oo gabay oo maansa aan ugu faalloonaya beesha xaamud ilkajar. haddaan xaamud ilkajar gabay xaqood siiyo xaaladooda gaarka ah xaqiiq uga faalloodo xumaan laguma baran iyo aadmi xamashadiisii. xusbad iyo wanaaguna waa dadku xeeldheere xarfaha qur-aankana dhammaan way xifdiyeyeene xadiiskii rasuulkay barteen iyo xeerka diinteenna allahumma salli wa sallim baarik caleyh. xaq iyo baadilkuna way kala xariiqaane xaamudow waxaad tihiin xubinta koowaade. xaajadii adkaata ee meel xun sii gaarto xalkeedana la waaya ee meel laysaga xooro xeer beegti weeyo xaamud way soo afjarayaane. xuquuqduu qof leeyahay kama xaqirayaane miskiin xoolihiisana xoog ugama qaataane intay sii xanaasaan bay weliba sii xambaaraane midkoodii xil hayana xisaab ma diidaye. xumaantooda kii raadiya kama xanaaqaane xurmadooda kii gartana kuma xaqirayaane xilkasnimo iyo aqoon barasho xad dhaaftay xaruntaad ugu imaan dhashii xaamud weeyaane. gabdho xuural cayn la moodoo qurux ku xarakaysan xaakimkeen siduu yidhi xag uga beyrayna xijaabkuna ka tegin qaab xirashadiisiiye xaruntaad ka heli reer xaamud sow maaha. xaggee bay degaan haddaad xaamud leedihiin xuduntii jalaqsiyo intii xaafad ku dhex taallo xagga kale jaceer iyo jamaacana barbaa xatraynayo.